dowladii 3 sano iyo 10 sano meesha rabto kuma gaarto safar dheer baan noo haray laakiin safarka idinka bilaabay safarka oo fursad siiyay ra'iisul wasaarahayga inuu shaqeeyo oo aan ummadeenna u shaqeyno oo aan shacabkeenna u shaqeyno hala kala aragti duwanaado waa caafimaad laakiin ixtiraamka waa inuu meesha ku jiro ummadda Soomaaliyeed yaad matashaan ixtiraam waa inuu meesha ku jiro walaalayaal waxaan rabaa inaan dhowr qodobood aan ku daro halkan waa arkaya qofka firimbiga hayo waqti ma hayo waqtigii qadada raalli ahaada waqti qadada la joogaaye walaal sanadkiiba haddii saddex bilood mar haddii lisu yimaado sanadkiiba haddii lisu yimaado in la isdhegaystaa wanaagsan walaalayaal si aan u xaqiijino marka arrimaha amniga oo muhiim noo ah si aan u xaqiijino higsigeenna qarannimo waxaa dowladdan ay xoog saartay sidii ay wax uga qaban lahayd nabadgelyada dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo dabcan la dagaalanka musuqmaasuqa tan iyo intii aad doorateen waxaan si aan kala go' lahayn aan isku hawlay inaan dhisno hay'adihii amniga oo ay ka turjumi karaan marxaladda amni ee dalka hadda uu ku sugan yahay annagoo ka shaqaynayna annagoo kaashanayna golayaasha dowladda oo idinka kow aad ka tihiin iyo guud ahaan shacabka wanaagsan ee Soomaaliyeed oo naga mudan inaan adeegooda siino waxaa alla mahadiisa ah inay noo suurta gashay inaan guulo waaweyn aan ka gaarnay sugidda amniga dalka iyo la dagaalanka cadowga ummadda Soomaaliyeed laakiin meeshaan rabnay weli maynan gaarin arrintaani iskama imaanin waxay ku timid naftooda hurayaasha ciidanka qalabka sida oo dhiigooda u huray siday ummadda Soomaaliyeed ay nabad ay ugu noolaan lahayd sidaas awgeed anigoo ka duulaya sidii aan u ilaalin lahayn niyadda iyo hamiga wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo maalin walbaba heeganka oo qorraxda taagan dhaxantana taagan sidii ay dalkooda iyo dadkooda ay u daafici lahaayeen waxaan xaqiijinay in mushaharaadkooda iyo baahiyooyinkooda gaarka ah oo asaasiga ahaa ee ciidan ay helaan bil walba oo joogto ah oo weliba aan u kordhinay mushaharkooda taas waxay qayb ka tahay natiijooyinka lama ilaawaanka ah ay gaareen ciidamadeena qalabka sida waxaan leeyahay ciidamada qalabka sida guulaysta ciidankeena waxaan leenahay guulaysta waxaad samayseen taariikh halkaasna ka sii wada inta aad xaqiijinaysaan higsiga qarannimo oo aan helayno hadduu ilaah yiraahdo oo higsigeennana muxuu yahay Soomaaliya oo nabad ah Soomaaliya oo mid ah Soomaaliya oo xor u ah danaheeda qaranka inay gaarto oo aanan ku shaqaynin shisheeye caqligiisa waxaan shaki ku jirin in dib u dhiska ciidanka uu ahaa shaqo aad iyo aad u dhib badan oo u xoog badan runtiina ay ahayd in mar hore la bilaabo laakiin waxa alla mahadiisa ah inaan hadda ku guulaysanay inaan taagno tiirarkii aasaaska u ahaa
ciidanka Soomaaliyeed oo tayo leh guulaha uu ciidankeena gaaray waxaad ka dareemi kartaan amniga magaalada Muqdisho inkastoo aysan fara ka qodnayn wali tusaale ahaan saddexdii bilood ee ugu horeysay ee sanadkii 2018 waxa magaalada Muqdisho ka dhacay 182 fal dambi halka saddexdii bilood ee ugu horeeyay ee sanadkii 2019 waxa ka dhacay 74 fal dambi sanadkan aan ku jirno saddexdii bilood ee ugu horeeyay waxa ka dhacay 24 fal dambi fari kama qodna ilaa aan geena meel hoose haduu Ilaahay yiraahdo waxaan mar kale shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda oo idinku koow aad ka tihiin aan ku boorinayaa inaan si wada jira looga wada shaqeeyo sidii kor loogu siiyay qaadi lahaa kalsoonida iyo wada shaqeynta ka dhaxaysa shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka qalabka sida ogeysiinta mudanayaal iyo marwooyin waxaan waqti hore aan bilownay inaan dhisno ciidan Soomaaliyeed oo isku dhafan si aan u helno ciidan qaran oo ka howlgali kara dhammaan dalka qaybihiisa oo dhan waxaan sidoo kale wadnaa qorshayaal aan kala shaqeynayno AMISOM African Union European Union iyo qaybaha kala duwan ee beesha caalamka kuwaasoo ujeedkoodu yahay sidii aan si dhameystiran uga la wareegi lahayn mas'uuliyadda nabadgelyo ee dalkeenna muddo dhow haduu Ilaahay yiraahdo waxa la yiraahdaa transition plan yaa la yiraahdaa waxa arintaani marka ay hirgasho noo suurta galaysa koow in aan anagu qaadano mas'uuliyaddeena nabadgelyo ee dalkeenna labo in aan la wareegno walaalaheena AMISOM oo maalin iyo habeen difaaca dhiigooda noo huray inaan kala wareegno hawsha waliba inaan wadamada deeqaha bixiya inaan ka nasino culayska dhaqaale ay ku bixiyaan ciidamadaas oo aan isku filnaano haduu Ilaahay yiraahdo si ujeedooyinkaas difaaca loo gaaro waxaan mar kale shacabka Soomaaliyeed aan ka codsanaya inay garab istaagaan ciidankooda geesiyaasha ah dhinac walba inay garab istaagaan mudanayaal iyo marwooyin arrimaha dhaqaalaha waxa xusuus mudan ama xusid mudan in muddadii ay dawladdan jirtay aan wax badan ka qabanay dhinaca kobcinta dhaqaalaha sidaas awgeed marka laga reebo dhibaatooyinkii dhaqaale xumo ee ay keentay caabuqa corona waxaan alle mahadiisa ah inaan ku guuleysanay inaan sanad walbaba aan kor u qaadno dakhliga dawladda ee gudaha kaas oo ay sabab u ahayd inaan la dagaalanno musuqmaasuqa iyo hufnaan la'aanta dhaqaalaha waxaan idin xaqiijinaynaa inaan si wadi jira ama aan si wadi doono la dagaalanka musuqmaasuqa haduu eeba yiraahdo waxaan sidoo kale maragma doonta ah in hay'adaha lacagaha adduunka ee loo yaqaan IMF-ka iyo bangiga adduunka World Bank-ga ay qoraaladoodii ugu dambeysay ay qireen in qaab xisaabeedka dawladdan uu yahay mid hufan oo daahfuran taas oo noo sahashay in laga cafiyo deymahaas tirada badan ee Soomaaliya lagu lahaa in ka badan 50 sano mudanayaal iyo marwooyin intaasoo idil waxaad ka ahdeen qayb maxaa yeelay xasiloonida dalka idinka iska lahaa garsoora arrimaha garsoorku waa dhexaadka nolosha ummadda Soomaaliyeed ummad kasta oo doonaysa inay nabad iyo xasilooni ku noolaato sidaas awgeed waxaan isbedel joogto ah aan ku wadnay hay'adihii garsoorka si aan u gaarno higsigeena qarannimo waxaan bilownay inaan hay'adaha garsoorka hay'adaha cadaaladda aan salka ka soo dhisno waxaana arintaasi soo nooleysay kalsoonida ay shacabka Soomaaliyeed u qabaan garsoorkooda sidoo kale si aan sare u qaadno tayada garsoorayaasha maxkamadaha waxaan hirgelinay imtixaano furan
oo qof walba oo Soomaaliya uu ka qayb gali karo si aan u xulanno garsoorayaal u carbisan aqoonna u leh shaqada loo igmaday mudanayaal iyo marwooyin hawlahaas oo dhan waa bilaaw mudanayaal iyo marwooyin waxaan ayana ahmiyad inoo leh dib u eegista iyo dhamaystirka dastuurka qaranka waxaan idin soo jeedinayaa in idinka oo la shaqeynaya hay'adaha kale ee dawliga ah in ay khusayso arrintan in kalfadhigan waqti badan la geliyo sidii loo dhamaystiri lahaa dastuurka qaranka si markaas ay shacabka Soomaaliyeed ay u helaan fursad ay ugu codeeyaan isla markaasna ay ku dhaqan galiyaan arrimaha dibadda dawladdu waxay muddadii ay shaqeynaysay ay hirgelisay siyaasad arrimo dibadeed oo ku dhisan is-ixtiraam wada shaqeyn iyo isfaham waxaan qayb horyaal ah ka noqonnay ku soo dhawaashaha iyo wada shaqeynta gobolka Geeska Afrika si gobolku u helo xasilooni iyo horumar dhaqaale waxaan sida la socotaan aan si dhow arrimaha Geeska Afrika aan uga wada shaqeynaa dhammaan madaxda Geeska Afrika in si ixtiraam ay ku jirto aan faragelin isugu samaynin aan isaga kaashanno arrimo badan ay ku jiraan dhaqaalaha meelna looga soo wada jeesto waxyaabaha xasilooni darrada ku keeni kara gobolka guud ahaan ama gaar ahaan qaybaha ka mid gobolka sidoo kale waxaan rabaa in aan idin cadeeyo in dantu ay ku jirto wada shaqeyn haday noqoto dawladaha dariska ah in la iskaashado daris wanaag in lagu wada noolaado waxaana ballan qaadaynaa in dhankeena arrintaasi aan ka shaqeyno annagoo wax gorgortan ah marna aynan ka galaynin qarnimada Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin arrimaha bulshada waxaan rabaa inaan halkan maanta aan uga hambaliyeeyo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo runtii udub dhaxaad u ah nabadgelyada iyo horumarka iftiimaya ee ummadda Soomaaliyeed ay maanta ku noolaanayso waxaa caado ahaan jiray in la yiraahdo dhalinyaradu waa madaxdii berri laakiin annagu waxaan idin leenahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaad tihiin madaxdii maanta waxaana shaki ku jirin annagoo ka duulayna mabaadiidaas aan dhalinyarada Soomaaliyeed u igmanay qaybaha ka mid ah mas'uuliyadihii ugu muhiimsanaa ee dalka ee dhinaca nabadgelyada dhinaca dhaqaalaha cadaaladda siyaasadda iyo arrimaha bulshada waxaan ballan qaadayaa inaan sii wadi doonno arrintaas hadduu Ilaahay yiraahdo si aan u xaqiijinno doorka muhiimka ah ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin hoggaanka iyo dib u soo nooleynta qarannimada Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee waxaan rabaa inaan dhalinyarada aan uga digo kuwa doonaya dhiigga dhalinyarada inay jaranjaro ay ka dhigtaan waxaan u sheegayaa dhalinyarada in aysan mar dambe aysan noqon aan loo isticmaalin dadka la yiraahdo ma liibaanaha lagu liibaano laguma liibaano dhalinyaradu inay ka fogaadaan 30 sano oo khibrad ay leeyihiin waa la soo shitay dagaal qabiil baa la soo galiyay haddana waxaa lagu wadaa dagaal argagixis dhalinyarada Soomaaliyeed intuu waqti ka lumi karo waa ka lumay maanta waxaa loo baahan yahay in mustaqbalkooda ka shaqeeyaan dawladdii kala shaqeyn lahaydna waa annaga mudanayaal iyo marwooyin shacabka Soomaaliyeed wuxuu soo maray marxalado badan oo aad u adag dagaal qabiil dagaal argagixisnimo abaaro iyo dadkii iyo dunyadii